alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iska leh waxaa maanta magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal ka curtay roobabkii guga indhawey tabatiixooda lagay waxaa maanta magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal oo inta badan roobabka aan ku ah ka diisteeda magaaladani Boorame waxaa maanta mar ay goor sheegta geeska Afrika ay ku beegnayd koodii iyo barkii duurnimo ayaa roobka badankiisu bilaabmay وانا magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal roobkan ayaa ka daay guud ahaanba gobolkani Awdal inta gobolada qaar oo si toos ah uga horay oo aad dareemayso bartamaha iyo faras magaalada oo roob badan qulqulayo hadda daawadayaal halkan aan taaganahay waa bartamaha magaalada Boorame waad arkaysaan suu roob ku qulqulayo waana alxamdulillah roob aad iyo aad mawjado badan ay qulqulayaan waa xilli ay saacada goor sheegta geeskan Afrika ku beegan tahay labadii iyo meelaha 50 daqiiqo aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin roobkuna marba marka ka dambaysa uu sii badanayaa roobkan sida tooska wuxuu u daayay muddo gaadhaysa 4 saac roobkan ayaa roob maasheeyay guud ahaanba gobolkani Awdal isku soo wada duubo roobkan ayaa guud ahaanba geeyiga Soomaalida intiisa badan ka dayn laakiinse magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal iyo guud ahaanba gobolada galbeedka Somaliland roobkan ayaa ka curtay muddo dhowr cisho ka hor waa Cabdiweli Cabdilaahi Diiriye Cabdiweli Nadaara magaalada Boorame